السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتنا دقيسانيسا meel kasto dunida daafeeda ka joogtaan. halkani waa radio BRB balida oo ka hadla xayawaanka ayaxa ee wadamada qaaradda Afrika maraya. saacadu uu bilaabmay waxa weeyaan waa 9kii iyo barkii. haddii aan taariikhda maanta waxay ku beegan tahay waa 4 bisha December 2000 sanadda 2019 aan isku sheegay waxa halkan warkan iga soo tabinayay waa وري عبد الفتاح حسن عبد الله صار هاتنا كل uga barateen wixii caalamka ku soo kordha ama dalka Djibouti ku soo kordhinay saaka hadaba warka cusub aan diihaynaa maxaa kamida waa ayaxan wali Djibouti hore looga barani Abdul Qadirow waan ku soo dhaweynayaa walaal adigoo khadka telefoonka oo waqtigu inagu yar yahay adigoo dhow maxaad soo koobaysaa oo halkan inooga haysaa saaka aad ka sheegi kartaa waxaan ku leeyahay horta aad iyo aad baan ku salaamayaa runtii ka qaaday walaal wadanka Djibouti ama garanaysaa Djibouti wadanka waxa ku soo biray waxyaalo aad weligeed adduunka laga arkin ama sanad lagu arkay saaka waxa kamida ayaxa yaa kamida oo wadanka Djibouti waa tahay aad baa u mahadsan tahay hadaba wadamada qaaradda Afrika waxa la sheegayaa qaarkood inay leeyihiin beero iyo caleeno iyo waxyaabo ayaxan ku gabto ku gabado maadaama inagu beero aynaan lahayn ambuuro ama caws inaga gabada aynaan lahayn maxaa khasaaro isleedahay u geysan kara wallahi iminka wuxuu imka u geysan jiro laakiin balse imku soo galay oo fadhnaade ma garanaysaa wuxuu geysan doono wallahi in kasto aan lahayn beero iyo ma garanaysaa geedo naga qaban bal waan sugnaa bal saaka waxa la sheegayaa inuu iskooladii dhulkii sariimadaha ama meelihii wax lagu iibsanayay inuu dhibaatooyin badan uu ku hayo uu degayo dhulka meelaha qaar oo dariiqyada la meel laga mara la leeyahay maxaan ka filan karnaa mise cusub sii joogi karaa ma maanta un baa mise waxaan dib ayuu u sii socon doonaa runtii horta cimilada haddii la eego waxaan u tagaynaa cimilada qaybta ka shaqeysa iyaan u tagaynaa weydiinaa laakiin balse maanta ahaan waxaan arkaynaa maanta arkaynaa waa runo way fiican tahay iskooladii wixii way fadhiyaan oo uu fadhiyaa sida qaar waxa la sheegayaa dhulkii dumarka maqaaxiyaashii sida ma garanaysaa sariibadii wixii iyuu ku wada degay oo dadku way wada yaabeen saa sheegtay Abdul Qadir hawada wadanka oo dhan ayuu ku baahsan yahay waad mahadsan tahay waxaan u dhiibayaa saaxiibkay Samatar Jawhar isaguna Jawhar oo soo dhaweynaya halo ma maqashaa walaal qadka go'ay waan ka xumahay mar labaad ayaan rajaynayaa inuu ninkaas ku soo laabmo waa tahay dadweynaha meel kasta oo joogtaan dhamaantiin waad mahadsantihiin aad iyo aad baan halkan hambalyo niga soo direynaa khasaarihiisana ilaahay noo saalaan leenahay balaayadiisana Allah naga mariyo waxaan ku soo dhaweynayaa Senator Maxamed oo isaguna ka soo hadlaya magaalada Toronto Maxamed wallahi sidoo kale mudan Cabdi Fataax waxaan leeyahay waxaan waxyaabaan aragnay maaha wax umuro waaweyn oo wallahi sidoo kale dadka khasaare waaweyn wax ku diibanaya sidoo kale anu waxaan u leeyahay inaan maxaa ku raayay wax qabado laga sameeyo oo maxaa ku raayay dawladuhu ay naga Maxamed sidaad ka dhawaajisay waxa tiri waa in dawladdu wax ka qabataa maxaa isleedahay ay dawladdu wax ka qaban karaysaa halkees ay dawladdu ka bilaabi karaysaa soo dalbata ay buufiso ayaan rabnaa Maxamedow sida haduu gaaro hameen gaaro waxaan leenahay indhuhu naga tuuraya oo ka cabanayna waad mahadsantahay walaal laakiin waxaan ku sheegayaa kale waxa la sheegayaa imka gabadh yar oo afka ka galay oo maxaa ku raayay sidoo kale taxtarkii lagu caymadayba sidoo kale halis baan leenahay waa runta waxyaabo badan oo khasaare u geysan kara laakiin waxaan wax alla iska wato weeyaan dawladna waxba kama qaban karto Maxamedow dawladda inaga waaweyn inagana awood waaweyn ayuu wadamadooda ku soo horeeyay waxana waa wax socdo oo qaaradda Afrika iyo dunida inteeda kala maraya والله sidoo kale waxa ku Cabdi Fataax beeri iyo tigaado oo sidoo kale uu noogu gabadaana ku milihin diyaarad mid hata ku filaanayd baan iga leeyahay ma xaad isleedahay khasaare u geysan kara maadaama beero iyo dhul raysa uu geysan karo ciyaalkii baa qadadii cunaya oo maxaa ku raayay ku cunayaba oo dumarkii suuqa socday maxaa iibsanayay iyo kuwa la degay oo ka soo baqday ganacsatadii oo dhan oo yaa ka soo yacay waa tahay adigoo hadalkaaga soo koobaya waqtiga ayaa inagu yar maxaa dadka talo iyo waano uga tagilay waxaan u oran lahaa madaxweyne inuu noo kaco uu maxaa ku raayay diyaar naga buufiyo حويانك ayaan rabnaa aad baad u mahadsantahay in kastoo aan islahayn dawladda wax ka qabanaysa